السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا صاحبنا halkan iga daawanaya meel walba waa joogtaan iyo solbo muuqaalkaygu uu markaa idin soo gaariyaba muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku fiiriyo qodobo waaweyn oo ku soo kordhay colaadda ka horeysa bariga dhexe iyo weliba kooxda xuutiyiinta oo gubay qaar ka mid ah warshadihii ugu waaweynaa ee shidaalka safeynayay ee gudaha dalka Sacuudiga wuxuuna Sacuudiga markaani uu dhexda ka taagan yahay dabin loo dhigay iyo dagaal uusan qayb ka ahayn markii hore marka bal qaybta hore ee muuqaalka iyagu waxaynu fiirin doonaa dhibaatada weyn ee Sacuudiga gaartay iyo waxyaalaha laga fili karayo markaynu ka hadlayno colaadda ka horeysa marinka caalamiga ah ee Babul Mandab qodobka labaadna waxaynu muuqaalkanaga aynu ku fiirin doonaa dowladda China oo soo garab istaagtay dowladda Iran kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu si public ah u sheegay inaysan China taageeraynin haddii ay duulaan hadda ku qaadaan dalka Iran oo aysan qalab iyo hub midna aysan siinaynin laakiin hadal dhabar jab ku noqday ayaa ka soo yeeray dhanka dowladda China China waxay cadaysay inay garab iyo gaashaanba u tahay dowladda Iran waa xaaladii aan oran karno waa looga sii daray bal qodobada iyo wararkii hadda ugu dambeeyay duulaanka Mareykanka uu qorsheynayo falaydyada tirada badan ee la kansalay ee bariga dhexe iyo colaadda la karkarinayo ayaan bal muuqaalka inuu ku eegi markaasi loo arkayo markii dhinac walba laga fiiro laakiin waxaynu bal ku bilaabaynaa colaadda ka horeysa dhankan iyo Babul Mandab waxaa ka taagan colaad laga baaqsan karay laakiin la oran karayo Sacuudiga ayaa lagu soo dhaxtuwa dowladda Sacuudigu ay dhawaan weerar ku qaaday garoonka caalamiga ah ee magaalada xudayda ee dalka Yemen wixii inta ka dambeeyana waxaa qarxay dagaal u dhaxeeya kooxda xuutiyiinta iyo waliba dowladda Sacuudiga kooxda xuutiyiintu waa tii dhawaan ay cunaqabatayn dhanka badda ah ay saartay dowladda Sacuudiga dhawaanna waa tii laba markab oo laga leeyahay dhanka Sacuudiga ee kooxda xuutiyiintu ay dab ay qabadsiiyeen laakiin mistake ugu weynaa oo Sacuudigu uu sameeyo waa inuu xalay uu weeraray goobo muhiim ah oo ay degan yihiin ciidamada kooxda xuutiyiinta ee ku yaala magaalada xudayda wixii inta ka dambeeyayna waxay kooxda xuutiyiintu ay gantaalo culus ay bilowday inay ku garacdo xarumaha shidaalka ee weliba wadnaha u ah dowladda Sacuudiga kooxda xuutiyiintu maalmihii hadda la soo dhaafay oo dhan aad ayay uga digayeen inay Sacuudigu isku dayaan inay soo weeraraan dalka Yemen iyo meelaha ay ka taliso kooxda xuutiyiinta weliba digniinta ay soo direysay kooxda xuutiyiintu waxaa si cad loogu sheegayay inay weerari doonaan xarumaha shidaalka ee dalka Sacuudiga iyo goobaha kale ee muhiimka u ah dalka Sacuudiga sida magaalooyinka waaweyn marka wixii ay ka digayeen wixii ay lahaayeen way dhacayaan haddii mar dambe Sacuudiga laga soo weeraro weeye dabka weyn ee maanta ka daaran gudaha dalka Sacuudiga kooxda xuutiyiintu waxay xalay weerar ba'an ay ku qaadeen mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee shidaalka oo ay dalka Sacuudiga ay leeyihiin waxaa la leeyahay waa xarunta shanaad ee ugu weynba oo Sacuudiga ay leeyihiin 4 xarumood oo kaliya ayaa ka weyn marka la fiiriyo xaruntan xalay la gubay waa xarun la sheegay in maalin walba ay ka baxdo ilaa 400 oo kun oo bareel oo shidaal si kale haddaynu dhigno ku dhawaad ilaa 400 oo kun oo fuusto oo shidaal in ka badan ayaa barday markaasi ka baxda meesha la gubay weliba gubitaankan la gubay ma ahan oo kaliya in hal gantaal lagu dhuftay ama gantaalo badan hal xabo ka mid ah inuu fakaday ma aha ilaa 5 ilaa 6 goobood oo kala duwan oo xaruntan weyn ee la gubay ka tirsan ay gantaalo ku dhufteen kooxda xuutiyiintu waa warshad 4 ilaa 5 meelood oo kala duwan gantaalo markaasi looga dhuftay dabka meeshan ka qarxay ayaa la damin laayahay ugu yaraan 7 saacadood ee hadda la soo dhaafay marka la fiiriyo dabka iyo qiiqa ka baxayana magaalada iyo cirka oo dhan wada qiiq ayuu noqday xataa dadka magaaladan iyo aagan degan oo dhan xataa si caadi uma noolaan karayaan waayo cirkii oo dhan uura iyo qiiq madow ayuu noqday dadkii oo dhan awood ama oksijiinka ay helayaan waxay noqotay mid smoke iyo qiiq iyo maxaa la yiraahdaa iyo dab ah ay noqotay marka qasaarahaas weyn ayaa dowladda Sacuudiga gaaray weli kooxda xuutiyiintu waxay soo saaraysaa digniino waaweyn oo ku wajahan Sacuudiga marka la fiiriyo sida Sacuudiga iyo kooxdan ay daris u yihiin distance ahaan
waxaad arkaysaa marka in kooxdanu ay xataa waxyaala badan ay samayn karto laakiin aad arkayso inay weli ay xuutiyiintu ay isgaagaabinayaan oo ay diidan yihiin inay aad u weeraraan ama hadday rabaan qaab istaraatiijig ah oo siyaasadeed ha noqoto ama qaab ay xoogaa isleeyihiin sacuudiga ha isku fogaanina ha noqoto laakiin aad ayay isaga ilaalinayaan ilaa iyo xad markii la fiiriyo tallaabooyinka ay kooxda xuutiyiintu ay markaasi ay qaadayso lama yaqaano waxa ay sacuudigu ay samayn doonaan ama tallaabada xigto oo sacuudigu ay samayn doonaan waxaase la isku raacsan yahay haddii sacuudigu ay mar kale weerar kusoo qaadaan gudaha dalka yemen iyo goobaha ay kooxdanu ay ka taliso in dagaalku intaan uu ka ballaaran doono iyo inay goobo badan oo shidaal ay markaasi ay kooxdani ay gubi doonto marka dagaal kale oo weyn ayaa ka furmay marinka caalamiga ah ee baabulmandab waana mid saamaynaya shidaalka caalamka isku socodka iyo weliba amniga gobolka ayuu si weyn u saameynayaa waxaana la oran karayaa dagaal kale oo ka madax bannaan midkii marinka hormus ka furnaa ayaa dhankaa laga fura bal wixii dambe oo kasoo bax waynu arki doonaa xaaladaasna waa mid aad u murugsan dhanka kale markii aynu fiirino iiraan iyo maraykanka ayaa iyaguna xaaladoodu ay tahay weli mid aad u cakiran waxaana dowladda maraykanka laga dareemayaa diyaargarow weyn oo dhan walba ah diyaarado dagaal oo aad u tiro badan ayay maraykanku ku sii wadaan gobolka dhexe kuwa shidaalka qaada ayaa aad loogu sii daabulaya dhankaas iyo israa'iil kumanaan shacab ah oo reer maraykan ayaa laga daabulayaa gobolka dhexe oo laleeyahay colaad weyn ayaa soo socotee ka baxa diyaarado aad u tiro badanna falaydadoodii ayay ka salayaan dhammaantood marka la isku darana waxay muujinayaan in colaad weyn ay markaasi kasoo socoto gobolka dhexe waana qaab lagu yaqaana inta badan maraykanku marka ay doonayaan inay duulaan qaadaan waxay la baxaan shacabkooda waxay isku dayaan diblomaasiyiintooda inay la baxaan way is aruuriyaan ka hor inta aysan dagaalka qaadinin waana qaabka lagu ogaado in maraykanku markaasi colaad uu soo wado waxaa sidoo kale lagu ogaadaa maraykanku in colaad uu soo wado warbaahinada maraykanka kuwooda afka dheer ayaa markaasi xogaha qaar ka mid ah soo dusiyey 24 saac hadda lasoo dhaafay waxaa aad u soo badanaya xogaha ay qorayaan warbaahinada u dhuunduleela aqalka cad ee dalka maraykanka waxaana la xaqiijinayaa Trump inuu qaatay go'aan ah inuu si ba'an ugu duulo jamhuuriyadda Iiraan weliba dagaal ka culus midkii uu ku qaaday horaantii sanadkan aynu ku jirno ee 2026 sidoo kale wuxuu Trump u geed dheer iyo geed gaaban u fuulayaa in China iyo Russia uu ku qanciyo inaysan colaadan aysan qayb ka noqonin maalintii daraad ahayd ayuu madaxweynaha maraykanka Donald Trump bartiisa True Socialka wuxuu ku soo qoray in uu la hadlay madaxweynaha dalka China isla markaasna ay isla qaateen in China aysan wax xub asinin dowladda Iiraan waana hadal aad loo wadwaday saacadihii hadda la soo dhaafay hadalkan wuxuu ku soo aaday xilli wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Abbas Araghchi uu ku aadanaa ama uu tagayay dalka China si markaasi uu ula shiro dowladda China sidoo kale xataa Iiraan oo dhanka China si aadis haddaad aragto waxay leeyahay xaaladdu markaa ay aad u adag tahay si walbaba ha ahaato dowladda China ayaa waxay ka jawaabtay hadalkii ka soo baxay Donald Trump ee ahaa China wax xub ah kuma taageeri doonto dowladda Iiraan iyo weynu ka wada hadalna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka China ayaa wuxuu si public ah uga jawaabay hadalkii Trump ka soo yeeray wuxuuna yiri Chinaha oo ah saaxiib istiraatiijiyadeed oo dhammaystiran oo markaasi aad ugu dhow dalka Iiraan ayaa wuxuu xaqiijinayaa inuu si adag u taageersan yahay dowladda Iiraan weliba wuxuu ku taageersan yahay inay ilaaliyaan waa Iiraan madax bannaanideeda amnigeeda iyo weliba sharafteeda qaran marka dowladda China marka laga hadlayo Iiraan waxay u tahay saaxiib istiraatiijiyadeed waxayna dowladda China ay ku taageeraysaa dalka Iiraan weliba si adag ay ugu taageerayaan inay Iiraan dalkeeda difaacato madax bannaanideeda difaacato iyo weliba inay sharafteeda ay difaacato hadalkan waxay falanqeeyaashu u fasirayaan inay Chinese-ku u direen message-kaani madaxweynaha Maraykanka Donald Trump loona sheegayay in China ay garab taagan tahay dowladda Iiraan wax walba oo Iiraan ay isku difaaci kartana ay Chinese-ku ay ka caawinayaan marka waa hadal cad oo xataa wiilka yar ee 10 sano jira uu akhrin karayo marka la fiiriyo luuqadda lagu soo qoray iyo weliba sida China ay uga jawaabtay hadalkii ka soo yaray Donald Trump cid walba way iska ogeyd in Chinese-ku aysan marnaba garabka Iiraan aysan ka baxaynin waxyaalaha ay u keenaanna aysan joojinaynin sida waxyaalaha gantaada laga sameeyo waxyaalaha droneska laga sameeyo
matoorada yar because diyaaradahan drones isqarxiya matooro yar ah ku jira gantaalada qaar ka mid ah matooro yar yar ah ku jira kuwa cruise missile la yiraahdo waxaan oo dhan oo ay ayagu samaystaan qalabka in logistiga meesha laga keeno waa dalka China cidda keenta waa China ka bacdina ayaga samaysta marka inaysan arintaasi ka goynaynin cid walba way ogeyd laakiin Trump dantii uu kala haaba jawaab adag ayaa markaas la siiyay marka waxa si ziyaadaya colaadda weyn ee la saadaalinayo ee ka soo socota bariga dhexe oo weliba Mareykanka iyo Iiraan u dhaxaysa waxaan isku raacsiin dadka arrimahan ka hadlaya colaaddan waxay noqonayso mid ka weyn midii aynu aragnay horaantii sanada saamaynta ka dhalatay cabsida laga qabo colaaddan ayaa marka waxay sababaysaa in falaydyo badan la kansalo markaynu ka hadlayno bariga dhexe iyo in dadku ay aad u cararayaan weliba waxaynu ka hadlaynaa dadka haysta baasaboorada Mareykanka ah maadaama ay safaaradaha Mareykanku waraaqa tirabeel ah iyo digniino ay dadka u dirayaan laguna qasbayo inay dib ugu soo laabtaan dalka Mareykanka oo bariga dhexe oo dhan ay ka soo baxaan lama yaqaan xaaladdu siday noqon doonto iyo nooca dagaal ee Mareykanku ay ku qaadi doonaan jamhuuriyadda Iiraan saacadaha iyo maalmaha inay soo aadan warbaahimaha iyo caalamka oo dhanna waxay isha ku hayaan colaadda ka soo socota bariga dhexe waxa ay noqon doonto intaasaan kusoo koobaya wixii dambe arrimahan ka soo kordha ayaynu muuqaaladeena dambe ee caawa aynu ku fiirin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh